Waking up in the morning, got the special Friday feeling. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرتي يدي قالي كوسو دوادا برتان يوتيوب كل ناي عبد حرقة اوفيشال فضلنا دي تاي مركي كوبادا يوتيوب كيغا سو بوقتو أما تكون عصب تاهي سبسكرايب لايك شير كومنتي وحبكو قماها اسكا دولتك اسكا تابو بطنكا قبل الكي نفرو سو فيديو كستو عصبي وكوسو قارو هل كان عندك لسعوتو واح كستو عصبا نسول زيننا القف aan ka maqnayn aad u noqoto insha Allah ta'ala maanta videogan idin wada wax weeyaan maadaama bil Ramadaan ay iska ku jirno khayrkana aynu iska badsanayno waxaan idin wada hal qiso inaan maqseen baa laga yaabaa suubanaheeni naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee عليه الصلاة والسلام نبينا محمد أيها كشيكي أصحابي سان وكشيكي إنه ولد كل يوم دي سيبين ونهايو كل قصة وين سوق عدي دد بدن ويدك يتكلم يعني قرنا شام الله جيابا قصة أصلا ما أنت يدي وذا إن شاء الله تعالى وقسمنا كنا هم قف إلهي دي ونأكسنه إلهي ما قرنا سحبتك يسوون أكسنية دوا قفي عن مركا يعني هذا الكون إيران قصة ما أنت يدي وذا وحويا وصدحنين النبي عليه الصلاة والسلام محمد هاي إلهي راليها كنقطة وحول هاي سدحني بمالين إسراعي ويبحين مركي بحين سدح دنين مركي أي بحين إسراعين سيدي السعودين با روب سوداي روب مركو سوداي با جود وي بي إسراعين والروب داعي جود كان روب كجلو جود كي مركي روب كجلين أي حوجة كوتشرين روب كنا وقاد واي أيا وحاسو جود كأفكيسة أيا نجح وين با أيا كوسو ترارحي أفكي بقبصنك ما لك بحنا مثلاً waxay yiraahdeen warnimay waaragtaane godkan si kale kaga bixi karnaa ma jirtee nin walba wanaagan ilaahay dartii aad u sameysay ilaahay kulli way naga feedayay nin walba ilaahay u sheego suuq inooga feedo ninkii koobaad baa ku horeeyay ninkii koobaad wuxuu ahaa nin wanaagsan oo wuxuu yiri ilaahayow haddii aad ii ogeyd inaan sameeyay labadayda waalid oo labadayda waalid baan ayaan caana siin jiray aan u soo lisi jiray aan ma garanaysaa caanaha markaan soo liso waalidkaygaan siin jiray si ay u cabaan marka habeenada ka mid aan soo raagay waalidkaygii baa seexday caanihiina waa soo lisay markaan soo lisan soo dul istaagay yaan arkay waalidkii hurda waxaan haddana sii karaahaystay inaan kiciyo markaan waa iskala dul istaagay caanihii markaan iskala dul istaagay ayaa waxaa carruurtaydina waa ooyayaan oo waa baahan yihiin sidii markay ahayd waa iska sugay waalidkayga markay kacay macaanihiisii sidii bay ku cabeen ilaahay waa adiga dartaaba wanaagaa u sameeyee ilaahu dhibka nagaga fayd dhagaxii in yar baa faydantay laakiin aanay ka bixi karayn ninkii labaad baa yimid ninkii labaad wuxuu ahaa nin wuxuu yidhi ilaahay haddii aad ii ogeyd inaan adeertayda oo adeerkay dhalay inaan aad iyo aad aan u jeclaa markii aan iyada aan naftayda aan anigu naftayda u doonayna aan ku uri dee ma garanaysaa aan ismudanno ayaa waxay ku xujaysay 100 diinaar markaan lacagtii aan doonay 100kii diinaar ee aan keenayna dee aanu ma garanaysaa aanu hawshii aan sidii ku galay dee ma garanaysaa hawshaada iska wado hawshii markaan isli aan galay ayaa markaan hawshii aan isli gala ayaa waxay tiri war ilaahay ka baq ma garatay ilaahay ka baq oo wax xumaantan aad wadid xaq ilaahay ku sameeyo khaatumada sidan xumaanta ku jabin sidaa markay ahayd ninkii wuxuu yiri waan baxay waa iskaga tagay ilaahu adigoo ogaa inaan gabadha adduunka ugu jeclaa adiga dartaana xumaanta sameyn rabayna adiga dartaan uga tagay ilaahu wadaad ogeyd ilaahu dhibka nagaga fay dhagixii in baa jabtay laakiin cirkiina waa u muuqday iftiin baa ka soo galay laakiin ma ka bixi karaan ninkii saddexaad baa inoo haray ninkii saddexaad wuxuu ilaahu wadaad ogeyd in aan shaqaale aan haystay oo nin walba markaa shaqaalo ii shaqeeyaan mushaar baan sii jiray maalmaha ka mid ah ayaa nin ka mid ah ayaan mushaarkii ana siin uuna tegay mushaarkiisii way bateen oo way istareen oo way ilaahay baa iska barkeeyey oo shaqadii baa dee ma garanaysaa mushaarkiisii baa u batay xoolihiisii uu ka tegay maalmaha ka mid uu soo laabtay markuu soo laabtay wuxuu yidhi isagoo mushaarkiisii doonaya mushaarkaygiisi saa intaan xoolihii u egay baan ku yidhi xoolaha lo geel wax kasta ay ku jiraan xoolahaagiiya kaxayso saintu isoo yiri xoolahan uma lahayn in yar baan lahay misaan ku yiri xoolahaagan waa xoolahaagiyo aan ku shaqeeyay macnaha oo istarayo iyagu batay ilaahay hadaan ogeyd inaan ninkaana aan xoolihiisii aan isagoo xoolihiisii aan ugu shaqeeyo aan siiyay ilaahayow adiga aan ku baraynaay ilaahayow dhibka nagaga fayd dhagaxiisidii ku faydmay saddexdii nin ay ku baxeen markaa qisadu insha allahu tacaala waxay ku saabsan tahay qof walba oo wanaag sameeya in ilaahay uu wax
ilaahay uu ugu naxariisanayo dhib kastoo ku dhacdana ilaah uu kaga fiidiyo waa bir Ramadaan khayrka hala badsado quraan akhriska hala badsado wanaagana hala badiyo dadkana wanaaga hala faro aniga idinku horeeya waxaan leeyahay wanaaga sameeya adiyaan baa idin jecelahay oo walaalkeen Cabdifataax channelkuna daawanaysaana waa Cabdixaraga official fadlan ka xasin subscribe share like intaba insha Allah ta'ala video ku xiga inoo balana waa aniga idin leh amaana Allah